Wolf wuxuu soo dhaqaaqay kii maska haystay dhankii soo xabaarsanaa gabadheer markaasuu wuxuu bilaabay kii uu soo weeraro kiina wuxuu bilaabay gabadheer tuuro markaasuu yiraahdaa ma adiga ii diidayna gabadheer miskiinta ay boqoradayda ah in aan u badbaadiyo gabadheer wuxuu bilaabay soo xambaaris raahdo laakiin wajiga basaal iska yar qaadayo cid aan filinay ayuu ma noqdaa oo wiilkii aksarkan imigeena ku ahaa wuxuu ku dhahaa saaxiibkan ku salaamay oo xabadan bay iskooladaana xabadii inuu wajiga galiya haddaba away gabadheer xaqiiqada ahayd ama dhabta ahayd gabadheer waxa xambaarsan kii lagu magacaabo Fiini kaasna waxa soo yeeynaysa kooxdii kuwaasi oo xabad ku soo tuuraya laakiin waxa la Fiinu hal mar xasuus galo xasuustaasi oo ah in wiilkii raw la tardaarmay ku lahaa qof walba mas'uuliyad aan u dhiibtay sida uu uga soo baxa kii aan ku arka qalqalooc isaga is jiraya oo yani isaga khatar naftiisu galaysa wuxuu ku yiraahdaa waxayna dhacday in balaxaga ku wada galaan oo mid walba mas'uuliyadii loo dhiibto laga rabo inuu si fiican u guto markaas aan xasuustii ka soo laabtay wiilkii Fiini waxa dhacay inuu surcatul quswa ku socdo oo bilaabay inuu meel jar iska tuuro meeshii jarka markuu iska tuuro waxa dhacay inuu webi ku dhaco webigaasna waxa dhacay in gabadh kale ay ka soo baxdo meel waxayna bilowday inay soo saarato bayskoolad wayna ku qabataa laakiin waxa dhacda in ninkii gaabnaay yani odaygeer ahaa la socday inuu isku beddelin caadiya wuxuu soo qaataa seef markaas gabadhu waxay bilowday xabadii soo tuurto laakiin kii wuxuu bilaabay inuu seefta isticmaalo oo xabadii ku kala jaro markaas gabadhu yaabto waxay ku tiraahdaa seef lagu kala jaray xabad kan aanu beego awood badnaanayay markaas waxa dhayn gabadhiido sawta hallaysa in hal marxabad laga garab gooyo yaa ka garab gooyay gabadh kale qanaasado meel shishe ama taagan gabadhaas aan isticmaalaysa AK47 ama sniper kuwii Free Fire babka lagu ciyaarayay oo toosay soo saaratay gabadhaas hadda ilaahay imika la socotid fadlan waxaan ku weydiinayaa qoriga aad ku ciyaartid Free Fire magaciisa comment igu soo qor waxaan soo laabana wiilkii yar iska dhigay gabadha markuu arko Wolf inuu gabadh yar ahayn laakiin yahay wiilkii yar gaabna waxa dhayn inuu xanaaqo cunaha qabto ciijiyo markaas aad wiilkii yar inuu qaska ku dhago isagoo nafta ka sii bixi rabto ayaa waxa soo dil istaaga ninkaasna wajigiisa lama tusayo waxa dhayn wiilkii inuu arko markuu ninkii arko waxa dhayn inuu xasuus galo xasuustaasina waxay ahayd markii uu yaraa ee uu la hadlaynin ninkaas inuu ku leeyahay soo dhaqaaq gabadha kaalay ku leeyahay isaguna ka cabsoonayay markaas waxa la hadlanin ninkaasna wiilkii ay walaalayeen oo walaalkiisa ka weyn wuxuu ku yiraahdaa ad mar walba wax loo egtahay mid careysan caruurtuna waxay ku maleynayaan in dil rabtay wayna ka cabsoonayaan walaalkii ayna ku yaro ku yiraahdo kala yaraankayga yaraa aniga ay kaalay oo ha cabsoonine markaas waxa wiilkii markuu arko ninkii waxa dhahay inuu farxo ninkii wuxuu bilaabay ninkii Wolf ka difaaco oo la dagaalamay isaga markaas Wolf doonay inuu wiilkii midida galiyo oo ka kalena bayskoolada kaga hayo ayaa waxa soo dhaxgalay kii askariga wuxuuna ku soo tuuraa xabadaasna waxa dhaynay kaga tuurto wiilkii mididii oo haystay rabin inuu wiilkii ku mudo markaas waxa labadii qof iyagoo isdagaalay xabad isla dhacaya ayaa waxa dhaynay hal mar lagu soo sii daayay qunbulad nabawi meeshii madowga ahayd waxa hal mar wax isku bedeshay iftiin waxa dhacay qunbuladaas markii lagu soo sii daayay geedihi ay wada googayso oo kaynti kala bar goyso markaas wiilkii raah wuxuu yiraahdaa ma waxa imika la tacaamulayna zilzaal ama yani dhul gariir markaas waxa la hadlay ninkii wuxuu ku yiraahdaa maya ma ku yiraahdaa waas dhul gariir ma ahan laakiin waxba lagu soo sii daayay haddaba waxaas asxaabaysa kaynto galay waa maxay ma xasuusadin hadda ka hor kooxda niisho sheegay rabay in gabadheer soo badbaadiyaan gabadha yar kooxdii soo rabay in soo badbaadiyaan gabdhaha ka koobna weeyaan kuwaasna waxay wataan taangiyadan dagaalka lagu galo markaas waxa dhayn taangigu inuu soo dhawaado kooxdii waxa dhayn kooxda ka wada cararaan meeshii markaas wiilkii wuxuu bilaabay inuu cararo laakiin waxa dhayn lugii yani xanuunaan kadib waxa wiilkii inuu ku fayraahdo waxaan dareemay xanuunkan hadda ka hor dareemay ee wajiga yani soo berberay markaas waxa dhayn gabdhii taangiga ku jiray inay taangiga ama qorigii taangiga ku yaalay inay hoos ugu dhigaan wiilkii waxna soo sii daayay hal madfac markaas waxa dhayn kooxdii wada naxaan oo ay afkooda taayaan oo wiilkii arbilo madfac ku dhacis leeyahay laakiin waxa soo baxa shakhsigaas lama filaana qaarkiin iniga mida way garanayaan shakhsigaas uu noqon doonaa shakhsigaas cid kale ma uusan noqon ee waxa uu noqday Sebastian waxa dhacay Sebastian uu badbaadiyay wiilkii yaraa haddaba waxa uu uga dhigay qunbulada maxay ahayd waxaas wax kale ma ahan waa boorsadaas oo samaysan birta oo samaysan xadiida taas oo wax walba lagu jiido ana ka dhaxdafayn qofkii awood isticmaalana wax walba iskaga qaban kara boorsadaas waxa dhacay ninkii la inuu soo celiyo Sebastian wuxuu ku yiraahdaa waad ku maasan tahay markaas gabdho waxay bilaabeen taangiyooga iska sii wataan markaas wiilkii la hadlo wuxuu ku yiraahdaa Sebastian falnabda ila shaqal inoo balo shaqada hadaba kadib waxa dhacay Sebastian wiilkii ay soo hoystaagaan gabdhii wata taangiga markaas gabdho waxay bilaabeen xabado soo sii daayeen laakiin Sebastian waxa dhacay inuu u jarjaro isagoo xambaarsan wiilkii yara markaas wuxuu bilaabay inuu Sebastian geed fuulo wuxuu yiraahdaa meesha ka dicifsan yahay taangiga waa maxay kadib wuxuu bilaabay soo caboodo wuxuu bilaabay inuu la ku jiido taangi laakiin taangi waxa dhacay waxa inuu noqon waayo oo yani waxba iska bedeli waayo Sebastian aqligaaga ma lagu kaaga yaalaa بدنا حديد وحبان نقولين بربطنا الله كل شيء بسميها لكن أصحابي ملنيسين مع نكن لاقي سوق موقن دونا بيرتا أنا أركي دونا استيجورتا
markaas aan Sebastian uu fuulo geed waxaana ku yiraahday wiilkii yaraa wax walba ku laaga ama yani wax walba ku jiido wax ma noqonayso wax loo jeedo laagiisi ay dhaawacday taangigii oo yani ka dhigtay midiisan laagiisuna ka dhex muuqdo taangigan wuxuuna yiraahdaa taangigan gabigiisu meel ka jixisay ma jirto oo gabigiisu dhanba waa xadiid hal noqdo dacfi uu leeyahay ma jirto laakiin noqdo dacfigiisa hadda ayaa fahmay waxaana Sebastian soo cararo oo qorigiis ku dhigo gabadhu waxay bilaabeen inay tiraahdo waa in ka faa'iideysan fursadan oo inay bilaawday xabad soo tuurto laakiin xabad waxa inuu ka foorarsado qorigiina wajhi ka laago qorigiina wax bilaabay inuu qalloociyo xagaasna waxa uu ku ogaadaa inay tahay noqdo dacfigiisa taangigiina wuxuu noqdaa mid aan shaqeynin markaas wuxuu bilaabay wiilkii Sebastian inuu isticmaalo gacmihiisa wuxuu ka soo dhex saaray taangigii wuxuuna dhan uu taangi kala jeexo oo gabadh la hadlo ku yiraahdo hay quruxay iyo waran waxay ku jawaabtaa master luga dheer ho xabadahan kadib wuxuu bilaabay inuu soo sideyso laakiin inuu hadhan isku u jarjaro markaas waxay inuu ku yiraahdo ho adna keegan qabso keegina wuxuu bilaabay inuu soo dhex tuuro keegina hadhan inuu meesha ku dhex qarxo oo gabadhii meesha ku olalaan ku gubtaan laakiin gabadhii meesha ku jirtay awlaha hadlay shukaaska quruxda badan ka dhaxeeyay iyadoo ma aysan dhiman يعني شو كاسي معهن ودجال شو كاسي وي برو فاهم markaas wax soo muuqdanin ninkaasna wuxuu xiray okiyaale wuxuuna yiraahdaa bayaanaadkii meeshan yaala macdaymi yaalo dhan waa la diliiday maxaa sameeyaa markaas wuxuu la hadlaa ninkii yani la socday wuxuu bilaabay waay ninkii wuxuu isku bilaabay hareeriis ka eego laakiin hareeriis markuu eego ayaa wuxuu arkaa ninkii gees ka saaran wuxuuna ku yiraahdaa goormad iga fogaatay oo aad geedka kortay markaas hadda geedkuna ka soo daba ku yiraahdo hay sheeko siyaad kaanaysaa maxaa sameeynaa markaas wiilkii la hadlo wuxuuna ku yiraahdaa اعتقد بان امور ستصبح مسليا يعني waxa rajeenay wax lagu noqon doono wax interest ah oo lagu raaxaysto markaas waxa dhacda labadii wiil meesha taagan ayaa waxa arkay wiilkii yaraa iyo Sebastian markaas waxay yiraahdaan labadan wiil yihiin labadiina waxa dhaynayaan naxaan waxaan bilaabeen isbaabaan oo isticmaalaan sixir hoos laaban odayga gabadha dagaalamaya sniper ku dagaalamayay gabadha markay gabadhu waxay bilaabeen odayga xabad ku soo tuurto laakiin waxa dhayn gabadhay kale xabad ka garab goyso waxaana tiraahdaa qof ay meelaha igu dhuumanay oo aan arkin iska tiqarinay waxaana bilaabeen geed ku dhuumato tiraahdo qof isticmaalaya sniper ayaan la tacaamulaya asxaabay inaan ku darsanahay moodna sniper si toos ah tiraahdaa waxaan bilaabeen iskaga dhaqaaqday meeshii markaas ninkii odayga ahaa iyo koox yar meesha jooga ayaa hal mar waxa arkaan flare ama baalka yani iftiinka ahaa la isku ishaareeyay ama la isku tilmaamay meesha qofka joogo kadib waxa dhayn meesha soo dhaqaaqaan markaas labadii nin iyo wiilkii maska watay waxay soo dhaqaaqeen dhankii qidaarka joogay ama tareenka halkaas ayna ku balameen waxayna rabaan inay qidaarka raacaan oo ay kaga baxaan kayntan waxayna rabaan inay gabadha ka fogaan kayntan markaas ayagoo doonay albaabkii furaan ayay waxa arkaan shaqaale farabadan meesha joogaan markaas labadii nin bayskoolada waxay ku yiraahdaan adigu noo soo joog meesha oo naga ilaali kuwa kale xaga imanay anaga kuna la soo tacaamuli doonay kadib waxa dhayn meesha soo dhex galaan biyo ba ka dhaxkaan ka dhacday yani xabada la isku widaarsadaa labadii ninna kooxdii daqiiqadar gudaheed bay ku saaftaraan waxna ku raan qiimaska watay soo galba ku yiraahdaan markaas waxa soo gaaray wiilkii Rafiini iyo gabadh yar boqorada ahay meeshii markaas wiilkii Fiini wuxuu bilaabay inuu tareenka u daaro oo inuu albaabkii weynaana ka furo awooddiisa isticmaalay markaas waxa tareenku dhaqaaqo markuu tareenku dhaqaaqo ayaa waxa dhacday in gabadh yar ay aragto wiil ninkii Wolf daba cararaya wuxuu ku yiraahdaa boqoradii istaag anigu waan ku qiyaamo waarun laakiin waxa rabaa in qiyaanada ka toobad keeno mana rabo in mar dambe ku qiyaamo waxa rabaa sidoo hore inaan ku soo laabto ee falni istaago caawi markaas gabadhu wax bilaabay soo qalbi jileecdo waxana ku tiraahdaa mar bay khiyaantay mar laba inay khiyaantay miya doonaysa markaas wuxuu ku raamay kuma khiyaamay isagoo raba inuu gabadh yar yani uu la soo garo tareenkii ayaa waxna xaga dambe laga toogtay isagana yaa toogtay waa gabadha aan soo sheegay inuu lahaa ma aysan dhiman taas ah inay toogato haba toogato ma xumee iyadiina iyo maxaa u dambeeyay Sebastian ba wuxuu ku raahdaa hore dhami bariiska bislaaday iyadana wuxuu bilaabay qoorta ka gooyo markaas waxa soo baxday gabadhii la dagaalamayay ninka duqa ahayd waxna bilaabay xabad ku soo tuurto laakiin iyadan isha laga geliya xabad wax lagu jiiday Wolf markaas arrin tareenka cararo labadii qofna si kala fogaanayaan markaas ninkii Wolf wuxuu bilaabay inuu ooyo ku raahdo istaag fadlan gabadhii yar waxa dhacday inay ooysay markaas waxa dhacday ninkii Wolf inuu kala xasuus waa markay isbareynayeen gabadhan yar ninka Wolf ninkan Wolf waxa uu ahaa dambiile jeelana lagu soo xiray jeelkaas markii uu ka soo baxayna waxa lagu xukumay inuu noqdo askarigii uu ka shaqeeyay kadib waxa lagu sii xukumay inuu noqdo khaadim oo noqdo gabadha boqorada ahayd ee ka ilaalin jirtay dibiga iyada ka ilaalin jirtay tuulada noocaas kadib wuxuu bilaabay tuulada yimaado wuxuu la kulmay gabadh yar loo sheegay gabadh yar intii ugu horeysay uu dibsanay yani shaqadeeda oo aad ay u nacay laakiin maalmaha kamida isoo dariiq iska maray ayuu arkay gabadh yar sawirada
markaasuu ku dhex jiray isagu wuxuuna baa u ooyo inuu raahdo waxaan ku balan qaadayaa inta nolosheeda ka dhiman in adiga khaadim ku ahaan doono oo na kugu shaqayn doono halkaasna waxa dhacay saaxiibtiin labada qof inay ka bilaamato oo labada qof ay noqdaan laba qof isku xidhan oo nolosha isla wadaaga nolosha isla wadaaga ma tii kale asxaabay sida wasaqda u fikrina laba qof oo kala ah gabadh iyo aabaheed oo ninkii Wolf wuxuu la dhaqmay gabadheer sidii isagu inuu dhalay oo kale markaas waxa Wolf inuu maqlo qayladaas inuu ka soo toosaamana gabadheer waxay ku leedahay unhud yaa xabiibi qalbi yaa umri ku leedahay markuu soo sar kaco ayaa waxa dhacay inuu wiilkii yar ay raahdo wiilkan waxa uu bleeding buu sameeyay dhiig bax buu sameeyaa ee fadlan soo qaadan midi kulul oo ay keena midida kuleed baa loo soo diyaariyaa markaas wiilkii wuxuu bilaabay gacanta ka saar gabadhu wuxuu ku yiraahdaa adiga waxa soo sabab ah ee wiilka hadda jeceshay maanta badbaadi waxana kugu tijaabinaya inaad gabadh wiilka jeceshay oo rajo ka sii leeyahay inuu noolaado iyo inay kale markaas gabadhu wuxuu bilaabay midida qabato waxa wiilkiina badbaadiso oo bleedingkii uu sii sameeyay ama dhiig bixu sii sameeyay inay ka istaajiso intaas saxaab ku soo gabagabeynaa maanta muuqaalkeena wad arkaysiin muuqaalku dheer yahay waan iga qosqosliye safar dheer isla soo galnay iminkan imiga waxaan u hareeba 4 xalqo kaliya 4 xalqan oo soo qulaasin doonaa waxaan maanta nii soo dheereeyay deemaad celiya oo thank you so fun comment ku soo qora asxaabi maca salaama wa shuufukum fi xalqa jaaye